ka dhacaysay waan joogi waayey waqti yani waxay ahayd xilli kuleel ah laakiin habeenay ahayd haddana saasay tahay markaan fadlan muuqaalka noo leegarey noona subscribe garey gambaleelkana furo mahadsanid waxaan wax ku nahay waa adiga walaal mahadsanid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة موقال عزب halkan waxaan rabnaa inaan ku soo gudbino muuqaal cajiib ah maalmahan waxaas habada soo gashay gabar cajiib ah oo dhulka ku garaacday dhulka la gashay dumarkii iscadeeyay ee isbaabi'iyay ee kalsoonida Ilaahay ka qaaday kalsoonida Ilaahay kama qaadan iyaga kalsoonida iska baabi'iyay waxay dhahday runtii gabadhu waa gabar aad iyo aad u qurux badan midabkeeda ku kalsoon sidoo Ilaahay u abuuray ku kalsoon runtii markay runta u sheegtay naagaha kalsooni la'aanta haysa oo iscadeeyay oo jirkooda haraga ka qaaday difaac jirkooda baabi'iyay sidii maski oo kale aan maalinta markay cadceeda jirto ama oraxda jirto aan socon karin habeenkii oo kaliya guureeya waxay u sheegtay runta maanta waxaan rabaa inaan idin kala qaado ama idin kala sheego gabadha madow iyo gabadha maareenka ah iyo gabadha iscadeysay ama gabadha cadaanka u dhalatay sida ay kala yihiin iyo caafimaad ahaan sida ay u kala fiican yihiin markuu horeyso aan soo qaadano gabadha madow ama maareenka ah runtii caalamka ama dadkan cadaanka u dhashay oo cadaanka ah ayaa raadiyay midabka baroonka ah ama madowga ah ama maareenka ah waxay seexseexdaan meelaha xeebta ah oo cadceedada aad u kulushahay sida Dubai oo kale waxay raadiyaan midabkaas madow ama baroonka ah sida ay u yeeshaan dunida horta midab cadaan ah qiimo uu ka joogo ama jacayl gabdhaha guni looga qabo ma jirto midda u dhalatay cadaankana horta qofka bini aadanka ah Ilaahay midabka uu siinayo maahan mid uu asiga doortay oo dhahay aniga midab madow isii ama midab cadaan isii doorashada adiga ma lihid adiga waxaa tahay adoon Ilaah baa ku samaystay midabkuu doonuu ka dhigtay muuquu doonuu ku siiyay qoomkuu doonuu ka dhaliyay wadankuu doonana waa kuugu dhaliyay runtii haddii adiga qurux ama cadaan samaysan kartid waxaad dooran lahayd Ilaahay ummadda uu abuuray inuu ka dhigo ummad qof qurux badan waxaad dooran lahayd midab fiican inuu ku siiyo waxaad dooran lahayd wadan gooni ah laakiin anaga doorasho ma lihin bini aadan ayaan nahay bini aadankana sidiisa banaanba Ilaahay ayaa maamula koonka oo idil iyo bini aadanka iyo wixii dul saaran marka dadka madmadow iyo dadka maareenka ah iyo dadka cadaanka u dhashay midabkooda oo dhabta ah Ilaahay siiyay inay ku qancaan ayaa fiican gabdhaha iscadeeyay runtii dhowr dhacdo oo cajiib ah ayaa laga soo wariyay ama laga soo sheegay in ay samaysay iscadeynta oo ayada sabab u ahayd gabar iscadeysay dhacdooyin ku dhacay qaarna ku naf waayay qaarna ku mustaqbal waayay ayaan rabaa halkan inaan ku soo qaato markay daawadan cusbeed in la marsado ayaa waxa dhacday xaafado ka mid ah magaalada Boosaaso ayaa gabar waxay samaysay in daawada jirkeeda dhan ay wada marisay iyo bacda joodaraha laga bixinayo ay dhaxgashay oo dirac oo kale u dhaxgashay markay seexanaysan gacmeeda way soo xareysay bustan oo isaartay waxay isdhahday ama waxay meelaha ka maqmaqashay in daawada markii la marsada kadib oo la isku huriyo bac la isku xiro runtii markay bacdii joodaraha ay ka saartay joodaro cusub bacda ay ka saartay ay dhaxgashay ilaa ay madax oo dhan ay dhaxgashay busta isdul saartay habeennimo ayay ahayd hooyadii aabihii war kama haynin
gabadhii naqaska ayaa ku xirmay way awoodi kari weysay inay cid caawin weydiisato ugu dambeynna way ku dhimatay. aroortii markii la soo kacay gabadhii waa la tabay ilaan guriga gabadhii howsha kala wadi lahayd oo dhan waaye. hooyadii qolkii ayay gashay, gabadhii oo waxay aragtay duuduuban hustadii ay ka daftay iyadoo caraysan oo isleeda maxaa saacan ku jiifiyey. gabadhii waxay aragtay indhaheedii dibadda yaallaan, indhaheeda taagtaagan yihiin, si xun u dhimatay iyadoo isku laalaaban bacdina ay ku dul dhigan tahay. way qaylisay, dadkii dariska ay u wacday, gabadhii waa loo soo galay, qof walba madaxu qabsaday. wayna ogaayeen in maalmahan ay isku jirto saansaanta daawada magaalada ay ku jirto, way ogaayeen. gabadhii waxaa la isku dayay in bacda laga saaro. waxaa dhacday dhacdo cajiiba. bacdii waxay ku dhagtay jirkeeda, daawadii ay jirkeeda lahaa bacdan jirkeeda ay ku dhagtay. markay isku dayday in bacda ka saartid waxaa soo raacay haraggeeda ama maqaarkeeda. waxaa lagu qasbanaaday ugu dambeyn iyadoo bacda sidaas ugu jirto in la aaso. ilaahay nagu sheegay qof walba wuxuu ku dhinto in maalinta qiyaamaha lagu soo saari doono. taas markaan ka gudubno, gabar kale ayaa waxaa dhacday iyadana muqdisho. daawada waa markii daawada aad loo bartay ahayd. gabadhii waxay samayn jirtay gacanta ka soo bilow ilaa garabka, gacanta kale sidoo kale lugta hoos ka soo bilow ilaa iyo cajarka, qoorta ilaa iyo feeraha ay marwalba daawada marin jirtay. inta kale jirkeeda way ka ilaalin jirtay. inta muuqata ee qofka markii la ag fadhiyo la arkayo oo keliya ay marsan jirtay. marka nin baa soo doontay, wuu guursaday. awal ragga aad uma kala garan jirin naagta iscadaysay iyo naagta cadaanka u dhalatay, inkastoo waayahan dambe aad loo kala yaqaano oon isku mid ahayn, daa midib ahaan daa muuqaal ahaan isku mid maahan. xitaa sidii ay waxay u soo urayaan aan caadi ahayn oo normal ahayn. almuhim taas waan u geli doonaa marka kadib. gabadhii wuu guursaday ninkan. gurigii markii lasla galay waa nin iyo naagtiisa, wax u kala qarsan ma lahan. gabadhii waxaa dhacday maryihii ay iska saartay oo dhammaa way iska saartay. marka meesha leer baa shidan. leer waxaa shidan leerka romantiga ama leerka midibka ah, waa taqaanaan, ayaa shidan. marka ninkan wuxuu u jeedaa gacmo oo cadaan ah, qoor oo cadaan ah, iyo lugo inta hoose ilaa cajarka oo cadaan ah. wuxuu leeyahay adiga maxaad iga qarinaysaa? garantaan iyo buumaha kugu jiro ma iska saartay? qoftaan waxa uu ma jiraan, laakiin intii oo ayada daawada ay ka ilaalisay ayaa madow. marka wuxuu dhahay waxaa ma iska saartay walaal, darkaa ma iska saartay, ana ninkaagan ahay. waxay dhar iguma jiro walaalo, maxaa kugu dhacay? maxay tahay waa dharaan kugu jira, garan iyo buuma kugu jirtay ma iska saartay walaal? maya waa wax iguma jiraan. gacantiisa istaatay, jirkiisa saartay. wuu naxay ninkan. naagtan kale midibka maxay tahay waa? wuu soo kacay, hooyadiisa uu soo kiciyey, gabadhii ayuu tusiyey oo xaaskiisa ahayd xaaladda ay ku sugan tahay u sheegay. aroortiina wuu iska fasaxay, wuu iska furay, wuu ka naxay. kalsoon dare ayaa ku dhacday. wuxuu islaa gabadh oo qurux badan ah ilaahay ku siiyey, laakiin gabadhii waxay noqotay gabar iyadoo kale midib ah oo ilaahay ku kalsooneen. mustaqbalkeeda ayay meesha ku weysay. marka labadaas dhacdo ayaan ka hayaa. dhacdooyin badanna way jiraan, laakiin labadaas dhacdo ay xoogaa macquul la noqotay inaan soo qaato khasaarada ay u geysatay daawadan. midda kale, naagta iscadaysay sidee dadka ugu dhex jiri kartaa? sidee dadka ugu dhex mari kartaa? saacadahay socotaa. naag iscadaysay oo daawo marsatay ma socon karto xilli duhur ah oo cadceedda kulushahay sida bini'aadanka kale oo kale ay u socdaan. waa laa shaki ma socon karto. midda kale, ma samayn karto naagta kale markii guriga ninkeeda ay joogtay ninkeeda inay la fara ciyaarto, la kaftanto. ma samayn karto, waayo waxay u soo uraysaa sidii harag dab la saaro oo kale u soo uraysaa. teeda kale, naag walba iscadayso shandadeeda waxaa ku jiro cadarka ugu carafta badan.
maxaa u sababa macna carafta may jeceshahay mise wax kala jira waxa kala jira gabadha iscadaysay xaflad haday ka qayb galayso meel yaro dad bulsho isugu imaanay markay ka qayb galayso waa qasab daqiiqad walba in cadar ismarso waayo meesha markay bulsho badan isugu imaato si kastoo qaboojigu ugu furan yahay marwaaxada u daaran yihiin haddana bini'aadamku markay kulmaan way iskuban kuleel qof walba kuleel kala ka soo baxay ayaa dhibaya meesha waxa ka imaanaya in la dhiido marka naagta iscadaysay boqolkiiba 90 way soo uraysaa laa shaki waa soo uraysaa naag iscadaysay bini'aadamka caadiga oo kale oo soo urayso qofka markuu dhiido shiir waxa jiro bini'aadamka lagu yaqaano oo shiir yar caadi laakiin tan waxay soo uraysaa ayadoo nool sida meedka oo kale xayawaanadka meedka oo kale soo uraysaa xitaa ka daranba meedka si gooni u uraa waqtiyada xoolaha si gooni u uraa jirta laakiin tan si baasay uraysaa marka naag iscadaysay ninkii naag u muuda waxaan ku sheegayaa markaad doonatid furaashkaaga inaad la wadaagtid boqolkiiba 90 waxaad kala jawaysaa urka jirkeeda ka soo baxay marka naagaha iscadeeyay gabadhan ayaa jawaab fiican siisay waan runteed naagaha iscadeeyay way uraan weliba si baasay u uraan markay ku soo galaan 3 naagood oo adiga meherad joogay 3 naagood iscadeeyay meherada ma fadhin kartid laa shaki waa taas inaad meherada kaga soo bixayso waa kalsooni daro daday ku dhacday waxaan ilaahay garanayn sidoo ilaahay u abuuray aan ku kalsoonay marka gabadhan kalsoonida isku qabta ilaahay sidoo u abuuray ku qanacsan waa inaad ku taageertaan raggow raadisan naag midabkii ilaahay u dhalay oo leh iska daay naagaha xuno sambabka isku ekaysiyo xididada banaanka iska soo dhigay xitaa aan cuno ku karin karin oo kushiinka ku gali karin xitaa aan maalin cad aan socon karin sida masaska oo kale in ay sunta ku badan tahay oo kale habeenkii soconayo walaasheedu waan ku taageersanahay boqolkiiba boqol waxaad tahay qof isku kalsoon ilaahay sidoo ku abuurayna ku kalsoon raggan waxaan leeyahay weligiina garab istaaga qofka wanaaga ka sheekeynaya ama wanaaga ka hadlaya mar walba waxaad arkaysaa gabar isa soo qaawisay isa soo cadaysay idinkoo like badan comment badan ka bixinayo u share gareynaya taageeraya keep going kara qofkii wanaaga ka hadlayna ka aamusay Soomaalidan waxay dabeecad u leeyihiin markaad xumaan ka sheekaysid oo kaliya ku taageeraan markaad wanaag ka sheekaysid way sii jeesanaan marka waxa idin leeyahay qofkii wanaaga taageera ilaaha taageera qofkii xumaanta taageerana ilaahay taageerisu kala noqonaya cadaab ayaa u dambeysay marka walaal waxaan ku leeyahay xumaanta ha taageeri mar walba wanaaga taageera wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa Shuur Shacni waxaan ahay gabadha ugu madow degmada Gurcaal hadii aad midabkii ku qanacsan tahay muuqaalkan share garay habeenkaas xaflad aan joogno waxa dhacday xafladda markaan soo galay waa soo fadhiistay xafladda isbedel ka dhaceysay waan joog waayay waqti yani waxay ahayd xilli kuleel ah laakiin habeenay ahayd haddana saasay tahay markaan safki soo galay karaa meesha ku joog waayay kadib waa iska baxay banaanka la iska fadhiistay marka meesha karka ama urka aad la joog weysay ma gabdhay sacadeeyaa meesha fadhiyo ayaan qasbin waay soo gabdhaha magaalada jooga hadii 3 loo qaybsho laga dhigo iscadeeyaan wallahi horta sheer waxaas lama dhigan karo kallay inta badan inkastoo ur iyo waxyaalahaas aniga inta badan aanan arkin oo la kulmin hadana waxa waaye kallay si aniga markii dhibsaday oo soo sacay meesha iga soo kartay gabdhaha iscadeey fariinta oo diray waxay tahay midabka ilaahay oo kusiyo waxa waaye ay cadaan waxba iska dhaamaan marka madooda ay marka cadahay isku yani leefalaata isku qiimeena gabar cad iyo gabar madooda waa isku qiimo ka gabdhaha iscadeenayo waxaan u sheegayaa iscadeynta inay faa'iido ugu jirin marka saas dhahayo iyaga ruuxooda igama aqli yara yani way og yihiin inaa wax faa'iido ugu jirin laakiin waxa waaye qabalna ragga xiriirada kala dhaxeeya ayaa ku qasba inay iscadeeyaan qabalna waxay aaminsan hadaa madowdahay waa laga tagayaa qof midabkiisa haysto waa hadii qof wax fahansan tahay iyo qof midabkiisa ilaahay u dhaliyay ku qancin waayay iimaankiisana ku kalsooneen
raacay hawo adduun iyo wax artificial gacan ku sameysay kale labaas qof la isma barbardhigi karo ilaahay ma siminba qofkan marka uu midabkiisa ku kalsoon yahay taas waxay ka turjumaysaa inuu midabkiisa haysto laakiin qof aan midabkiisa ku kalsoonin waxay cadeynaysaa qofkaas inuu yahay inaan fariinta aad u dirayso gabdhaha madmadow maxay tahay gabdhaha madmadow waxaan leeyahay asxaabi midabkiina ku kalsoonaada cidna inkama qurux badna inta gabadhaani tahayaata farqigeedii ma dhexayaan inta iyada xiriirka la sameeyo boqolaal ka badan inay kula shaqeeyaan laga yaabaa inkastoo hadda dadka soo fahmayaan yani iscadeynta waxay tahay saas darteed kalsoonida mareenay aniga gabar kale oo saaxiib nahnay soo markaas niman oo kuwan darbiyada dhisay meel ka dhisay kaas waxay dhaheen gabadhan waa gabadha guracaa lagu madow aniga masaas u fiirshaxan dhahay midabkeyga oo ku qanacsanaa wuxuu yahay waaye qofka marka horta iscadeys waxay isticmaasho chemical oo waxyaalaha chemicalka waxyaalo oo yani aan fiicnaan inta badan marka dib taariikhooda ay u raadisid waxyaalo qaldana laga sameeyaa habeenkaas xaflad aan joogno waxa dhacday xafladda markaan soo galay waa soo fadhiistay xafladiis badari ka dhaceysay waan joog waayay waqti yani waxay ahayd xilli kuleel laakiin habeenay ahayd haddana saasay tahay markaan safki soo galay karaa meesha ku joog waayay kadib waa iska baxay banaanka iska fadhiistay marka aad meesha karka ama urka aad la joogi weysay ma gabdhay iscadcadeeyaa meesha fadhiya haddii qasbiin waa soo gabdhaha magaalada jooga haddii saddex loo qaybsho laga dhigo iscadeeyaan